السلام عليكم ومقال كل واد oo aynu ku eegayno maskaxdii Camar bin Caas waxaaynu soo tilmaanay in Camar bin Caas uu ahaa ninka Carab ugu maskaxda badan iyada oo haddana la sheego in uu Muawiya bin Abi Sufyaan ka maskax badnaa hase ahaatee ma jiro qof aan Muawiya ahayn oo la sheego in uu Camar bin Caas ka maskax badnaa waxa kamid ah qisooyinka cajabta iyo la yaab ka mudan ee laga sheego Camar bin Caas in uu Umar bin Khattab hogaamiyihii labaad ee muslimiinta Camar bin Caas ku qanciyay in uu dagaal ku qaado wadanka Masar oo uu haysto madaxweyne Kristaan ah kadib markii isaga iyo ciidankiisu baxeen ayaa uu Umar ka daba diray Camar waraaq ninkii waraaqda siday ayaa soo gaaray ciidankii kadibna waxa uu hogaamiyihii ciidanka ee Camar bin Caas ka codsaday in uu waraaqda furo oo uu bal akhriyo waxa ku qoran isaguna waxa uu ugu warceliyay oo ugu jawaabay ihay waan furayaa kolba marka cabaar la socdo ayaa uu ka dalbadaa in uu akhriyo isna waxa uu war ugu soo koobaa kaadi waxyar ilaa laga gaaray meel wabi ah markii uu dhaafay wabigii ayaa uu yiri keen waraaqda kadibna hadiiba uu furay waxa ku qoran oo uu ugu tagay hadalkan hadii aad dhaaftay wabiga hebel wad ciidanka oo ha soo noqonin hadii aanad gaadhinna dib u soo celi ciidanka markaas ayaa uu Camar bin Caas yiri anaga oo aan furin ayaa aanu garanay waxa ku yaala ninkii waraaqda siday ayaa yaabay oo yiri sidee ayaa uu u ogaaday waxa ku yaala waxaana uu arintii u sheegay madaxweynihii muslimiinta ee Umarna waa uu yaabay waxaana uu yiri bal hadda ha yimaado sug markaas ayaa aynu weydiinay markii uu yimi Camar bin Caas ayaa la weydiiyay sidee ayaa aad ku ogaatay waxa waraaqda ku qoran adiga oo aan furin markaas ayaa uu yiri waxana bartay taatikada dagaalka inta aynu ku kulmi doono muuqaal kale oo xiiso badan waa Sakariya Haaruni oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum